waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegaystayaal, siyaalo badan oo kala duwan ayay ku dhalataa mahmahda Soomaalidu, waxaana ka mid ah qayb dhan oo dugaagga iyo duurjoogta loo saariyo inay iyagu curiyeenna lagu been hawaaso. marar badan ayaynu maqalnaa iyada oo laleeyahay waraabaa wuxuu yidhi, abeesaa waxay tidhi, rahbaa wuxuu yidhi, gorayaa waxay tidhi, biciid baa wuxuu yidhi, dawacaa waxay tidhi, iyo sheekooyin la mid ah. waase la ogyahay dugaagga iyo duurjoogtu inaysan aadanaha ku war ahayn oo af Soomaali iyo af kale toona aanay ku hadli karin, iska daa inay mahmaaha ku curiyaane. ujeeddadu waxay tahay in murti lagula baxo, waxna la isku tusaaleeyo. taasina waa tabsuugaaneed aan Soomaalida ku ekayn ummado kale ay la wadaagto. mar walba oo mahmaahda jaadkaana la adeegsanayana, sheeko gaaban oo gogolxaar ah ayaa laga horraysiiyaa, dabadeedna waxaa la israaciyaa magaca bahalka loo saarinayo iyo mahmaahdii afka loogu tiray. si loo rumaystana, Soomaalidu kolka ay sheekada oo kale marinayso, waxay tixgelisaa dabeecadda bahalka mahmaahda la siinayo, waxyaabaha ka suuroobi kara iyo fikradaha guud ee isaga ay bulshadu ka qabto. haddaba dugaagga iyo duurjoogta ay Soomaalidu murtida kula baxdo, waxaa marahayga ugu maahmaah badan dhurwaaga oo ah bahalka ay reer miyiga isugu badiyaan. wuxuu ka mid yahay dugaagga tirada yar ee hilibka mooye aan oomati kale ku hambaasin, geedahana doog iyo abaartoona aan afka saarin. sidaa darteed waa bahal mar walba xoolaha reer miyiga isha ku haya oo eebbaweyne saami ugu daray, noloshiisuna ay ku xiran tahay. abaar iyo aaranba kama uu fogaado halka ay xooluhu daaqaan iyo xeryaha habeenkii lagu soo xeraysto. had iyo jeer isaga iyo xoola raacatada waa u halgan, maruu isagu raayo oo uu neef kala tago, iyo mar ay iyagu raayaanoo ay ka dhigtaan ee waxadooda ay ka ceshadaan. isu dhowaanshaha dhurwaaga iyo Soomaalida reer miyiga ah waxaa ka abuurmay fikrada bahalkaa ku saabsan oo maanka bulshadeenni hore ku samaysmay. giddigoodba waa fikrado xumi mooye aan wax wanaag ah lagu arag. xagga dhaqankiisa waxay ku tilmaamaan inuu yahay wax ay gunnima dilootay oo hunguri xumo, diihaal joogtaa iyo quusli'iba lagu ibtireeyey. dhaqankaas aysan jeclayn waxay Soomaalidu garab dhigtaa dhaqan gobeed ay ku tilmaamaan libaaxa oo si walba waraabaha uga dabeecad gedisan. marka hore, inuu dhab u gaajooda mooye libaaxu xoolaha iskama laayo, halka uu dhurwaagu markay u degtaanba uu ka warjeefo. marka labaad, haddii uu ka dhergo, libaaxu raqda kuma dul nagaadee wuu ka tagaa. wuxuu u daayaa dugaagga kale ee duleedada halka uu wax ku cunaayo ka soo dhawugaya. dhurwaaguse xataa haddii uu dhergo, hilbaha hoos yaal kamau ag dhaqaaqo, raxantiisa mooye cid kale wax ugama ogolaado, ilaa uu lafaha jajabsadana kama uu dul tago. marka saddexaad, neefuu isagu disha mooye libaaxu baktiga wax ma moodo, umana hawoodo. dhurwaaguse waa xaabqaad aan bakti iyo xalaali u kala socnayn, oo wixii uu ka soo kor dhacaba ay gaaja u qabato, calooshana ku hubsada. dhaqankaas gunnimo ka sokow, xagga abuurtana dhurwaagu Soomaalida waa u astaan foolxumo. socodkiisa, midabkiisa iyo addimadiisuba waa la siloon yihiin. ragga kii hunguri xumo ama foolxumo xagga oogada ah loo qarinayana, magaca bahalkaas ayay kiisa ku laraan, markaas bay hebel dhurwaa ama hebel waraabe ku naanaysaan. aqoonta dheer ee ay Soomaalidu dhurwaaga u leedahay waxaynu ka garan karaynaa magacyada iyo naanaysaha tirada badan ee ay u taqaan. inta aanu hubno, bahalkaasi waxa uu af Soomaaliga ku leeyahay labada magac ee kala ah dhurwaa iyo waraabe. ha yeeshee waxaa u dheer naanayso 9 gaaraya oo dhammaantood tilmaan ka bixinaya sida uu u abuuran yahay. waxay kala yihiin qaariyare, huluul, ciira dambas, cumar luglaawe, qaar xabaal,
cagey, dhuruq dhaylo, ciira muruqla iyo lug dhammaajo. naanaysahaas waxaa qaarkood laga heli karaa hawraar dhaqameedyada reer miyiga soomaalida ay wada yaqaaniin iyo maansadii hore labadaba. saddexda kale ah cagey, huluul iyo cumar luglaawe aan haddaba murtida soomaalida ka baadi goobo meelaha ay kaga jiraan idindul joojiyo, dabadeedna intaan cagey ka bilaabo aan idhaahdo jiilaalka kolkay tahay oo xoolaha qoyska reer baadiyaha ay nacfi yareeyaan ayay hooyadu caanaha carruurta u tashiishaa. ay ku dadaashaa si siman inay ugu qaybiso oo aan midkoodna qadin. xerada ayay gashaa iyada oo sidata haruubadii ay ariga ku lisi lahayd, yaryarkuna meel aan oodafada ka fogayn ayay isa soo tubaan. in fadhida iyo in taaganba waxay kala hororsadaan kolba haruubka ay soo taagto ee ay caanuhu ku jiraan. isku dabeecadsa ma ahee carruurta ku kamida ayaa kolkaas qaylo afka labadii yeera oo oohin iyo dhulgalgalasho isku dara, isaga oo hooya caana isii ku celcelinaya. ma wuxuu ka baqayaa inay ilowdo? ma hamuun gorgor buu leeyahayoo sidaniba waa u dabeecad? mase gaajo xun baa ka dhawaajinaysa? intaba u maleh. waxa ugu wacanba cabbaar hadday iska dhagatirto ayay marka dambe xaggiisa u soo jeedsataa oo habaar aan hoosta jirin oo gacal cuna intay ku tuurta ku tidhaahdaa iga aamus, caana kuma hayay cantariigsa oo cagay ka bariye. waaba cagay iyo caano, waa caana waa sarbeeban, saa cagay iyo caano isma galaane. siday cagay ugu naanaysaan ayay soomaalidu dhurwaaga huluulna ugu naanaysaan. taasina waxay ka muuqataa heesaha dhaqanka middood. garabnimadii geeljiruhu kolka ay geelasha carraabinayaan ee ay xedhiyihiisa ku wadaan way u heesaan, markaas bay tubtu u macaanaataa. heesahaas ay ku carraabin jireen ayaa waxaa ka mid ahayd tu ay odhan jireen horaay bahalkii huluul lalahaa yuu ku heerine horowga carrow. bahalka huluul lalahaa ee hasha lagu cabsiinayaana waa dhurwaaga. naanaysta saddexaadi waa cumar luglaawe. darwiishkii gabyaagana ahaa ee la odhan jiray ismaaciil mire ayaa beri gabay tiriyey. laba dhinac oo colowday ayuu mid ahaan si dadban ugu garbaynayay. dabadeedna dhinacii uu rabay inuu u heeliyo ayuu libaax ku tilmaamay. kii uu ka jirayna wuxuu sarbeeb ahaan ugu sheegay cumar luglaawe oo sidaan soo sheegay ka mid ah naanaysaha uu dhurwaagu leeyahay. wuxuu yidhi curdadkiiyo juglaydiiyo haddaad cagadeeda u yeedho oo habar dugaag oo camiran cudud laguu siiyo maroodiga cawaarsaday hadduu ciidan kugu raaco walee cumar luglaawow libaax kama cod weynaatid. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inaan toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e-da. waana qayb labaad oo ku saabsan murtida iyo maahmaahaha ay soomaalidu dhurwaaga u saariso. dhegaystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore sidaydinku maqasheen, dhurwaagu wuxuu ka mid yahay dugaagga hilibka oo keliya ku nool oo haba yaraatee aan oomati kale hunguri ka gelin. maalintuu inta dhasho dhulka ka kaco ilaa marka uu bakhtiyana wuxuu ku raad joogaa xoolo dagan oo ciddii iska lahayd ay u wadeecaysay. gobollada ay ku dhaqata qaarkood waxay soomaalidu bahalkaa u qaybisaa saddexda nooc ee kale ah: hintifaa oo ah habeenkii markay tahay midka ariga xeryaha ugu dhaca; qormahaalig oo ah midka geela laaya; iyo cayle cataatir oo ah dagallada laga guuray harag iyo maqaar wixii uu ku arko midka ka ununufa. sidaa daraaddeed ma aha in lala yaabo mar walba mahmahaha dhurwaaga laga sheegaa haddii ay ku wareegaan halganka joogtada ah ee uu ugu jiro helitaanka hilib uu ku noolaado. xilligii la joogaba dhurwaagu intaas wuxuu jafayaa dhul qodaxdu sariiran tahay, dhul dhagax iyo dul miirana, dhul cagaag badan oo ciddiyaha ka dhilqiya, dubkana ka murxiya. hase ahaatee uma uu fadhiisto, saacidina uma maqna, umana xil qabtee. jarmaado iyo boqoole, carraabo iyo guuraba wuxuu ku qasban yahay inuu socod ku jiro. foog iyo fiidba wuxuu u tafaxaydan yahay shiid iyo caddiin siduu hilib ku heli lahaa,
si aanay nafta u kala dhaqaaqin. haddaba maalin maalmaha adduunka mid ah ayaa waxaa ugaarsi u soo kallahay dhulwaa duq ah oo toddobaadkii hore oo idin ku sari waayey. cadduun ruubad ah oo kulayl badan ayuu dhex jaqabsanayaa, suudiga daraaddiisna kolba cagaha ayuu ciidda kala boodaya. barqaharraacdii kolay tahay ayuu daalay, tallaababa wuu qaadi kari waayey. dabadeedna inuu nasto ayay tala kaga dhammaatay. geed quraca harkii intuu ku leexday ayuu iska hiraan hiray. wax yar kadibna cagihiisii ayuu hoos u eegay. mase maxaa dhiig ka da'aaya? maxaa qodax ku mudan? faraha, suulasha afarta ah iyo cirbaha inta dhulka la dhigo meel waliba way haaraysaa, xubin waliba way dhaawacan tahay. kolkaas buu hamiyey. wuxuu naftiisa kula sheekaystay inuu ku rayn lahaa haddii uu heli lahaa saydhada iyo cagaagga wax ka xigsada oo sida dadka kaba loogu toli lahaa. haddana wuu isla yaabay. wuxuu garan waayay sida ay fikraddaniba ugu soo dhacday. wuxuu xusuustay inuu dhulwaa yahay oo cagihiisa dhiigga ka da'aya aan cidina dan iyo daarad ka lahayn. dabadeedna isaga oo ku raalli ah waxa uu yahayna aqoonsan ayuu iska hilheshay oo inta hortiisa u dhaqaaqay ku tiraabay, haddii kaba la ii tolana alxamdu lilaah, haddii aan la ii tolinna rabbilcaalamiin. qoraaxdaasina waxay waagii dambe noqotay maahmaah uu xusuusto wax inuu helo uu ku fiicnaan lahaa qof loo diiday ama laga hagraday, isla markaasna naftiisa ku dhiirigelinaya waxa uu waayey inuusan u rambasin, dantiisana aanu uga harin. sida laga yaabo dad badani inay u haystaan, arrintu ma aha oo dhurwaagu mar walba geesi ma aha. xoolaha haddii uu soo weeraro reer miyigu way kula diriraan, wayna ka dhacsadaan. haddii lagu maahmaahay libaax nin aan aqoon baa lax ka rita, dhurwaagu waa ka duwan yahayoo lax iyo riba hadduu wax kala tago way ka dhigtaan. dabadeedna hargaad iyo dhagax siday ugu wadaan ayay dhulowgeedaale uga soo haraan, isaga oo diihaalkii uu qabay daalna ugu kordhay. taasi inay run tahayna waxay soomaalidu daliil uga dhigataa dhulwaagii ariga mayracanaya u soo gaatamay ee ida iyo riyaba markay dareemeen ay dhagac yidhaahdeen, cagahana ay wax ka dayeen. dhinacii uu arigu u diday ayuu isna u afar qaaday. hase ahaatee wax yar kadibba si kadiisa ayuu kobcodla'a isu taagay oo hortiisa ku dhaygaga. tolow maxaa u muuqday? waa lax shilis oo arigii diday ka hadhay, dhinaciisana u soo cararaysa. intuu yaabay oo amankaag dhammeeyey ayuu si deg deg ah dhabarka u jeediyey oo jihadii uu ka yimid u faranduleeyey, iyada oo laxdiina ay ka daba jaran tahay, welibana ay ciyayso. show isagu ma ogee laxdu waa indhalaadahay. show arigeedii meel uu u diday iyo meel uu ka jiraba war uma hayso. show markii uu u soo dhowaadayba jaanqaadkiisa ayay dareentay. show arigii ay ku jirtay neef ka mid ah ayay u qaadatayoo dhurwaaga ay daba cararayso wehel bayba ka dhiganaysaa. wuxuu ka baxsado laxduna ay daba orodaba. markii dambe oo malaha uu laba geedni ka soo fogaaday ayuu gadaal eegay, mase maba muuqato oo goor hore ayayba isaga hadhay. welise wuu amankaagsan yahay, wuuna ku gar lahaa, maxaa yeelay xoolo ka carara mooye weligiiba xoolo xaggiisa u soo carara waa u maanta. galabtaasna orodkii dheeraa isaga oo weli la xurtaysan ayuu yidhi, war madayladaan cun islahaa ba aniga calaf iga dayday. oo gadaalkii noqotay hawraar lagu maahmaaho, uuna ku tiraabo qof waxtar ama waxsiin kale ka filaayay qof kale oo uu u hanweynaa, hase ahaatee ku hungoobay, welibana isagii wax doonayay wax la biday, halkii wax laga siin lahaana wax laga weydiistay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga. waa ina toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb afraad oo ka mid ah murtida iyo maahmaahaha ay soomaalidu dhurwaaga u saariso. dhegaystayaal, hunguri xumo, fildarro iyo maquuste inuu yahay ha lagu daraabo hana lagu caaye, soomaalidu dhurwaaga garaadyari kuma xamato. had iyo jeer waa bahal aan dantiisa ka seexan, goor walbana u xusul duuba. waa bahal kala garan og xoolaha dagan ee uu wax kala dhici kara iyo kuwa ilaashan ee duulka lihi uu ku gaashaaman yahay. wuxuu xataa yaqaan xoolaha haweenka iyo carruurta lagu halleeyo. kuwaas ayuu ku soo dhiiran og yahay halka uu ka meermeero qaarka ay ragga waaweyne la joogaan ee bulaankooda uu bartankooda ka maqlaayo. isaga oo siyaalaha ku tilmaaman ayay haddana waxay soomaalidii hore ku sheekeeyeen weligii iyo allihii in dhurwaagu uu 2 jeer oo keliya nacasoobay, kolkuu wixii la gudboonaa uu ka ilduufay. waa 2dii jeer ee intuu doqonoobay uu gacmaha ku dhigi waayey xoolo nool iyo hilbo tiro badan oo inaba aanu u hawshoon, isha baalkeedana u soo jirsaday. 2 jeerba sida aynu arki doonno waxaa hoday rayrayn xaddhaaf ah oo caqligii kala tagtay. farxad aan shinkeed gelin ayaa calaf tirtay. wuxuu garan waayey wax aan weli gacantaada soo gelin in aan laysa siin. markaas buu habeen uu dhare ku seexan lahaa gaajo ku seexday. wuxuu iloobay meel fogaan badan hillaac ka bilig yidhi jeer halkuu ku hooray la dego inaan laabta loo ruxin. markaas baa hundhur iyo caloolxumo waagii ugu bariyey, isaga oo kari karay inuu baraaro ku seexdo, bashbashna uu ku soo tooso. waxay ku sheekayn jireen dhurwaa muddaba qadsanaa aadna u diihaalsani in maalin maalmaha ka mida uu ugaarsi u baxay. duhurkii markay tahay oo aanu waxba gacan ku hayn ayaa meel taaga oo hortiisa ah waxaa uga bidhaamay 1 shilis oo kob cidla'a iska daaqaaya, 1 allihii alla yahay oo arigiisiina aan ku dhex jirin, cidina aanay la joogin. dhurwaagii yaabbaa rabbi u keenay. wuxuu isu qaatay inuu hurdo oo waxaana ay riyaba tahay. indhihiisii ayuu aamini waayey. midig bidix ayuu jeedaaliyey, bal ciddii neefka lahaydi inay meelaha ka dhowdahay. waxba kolkay u muuqan waayeenna farxad iyo filan waaba ammaasheeyey. kolkaas buu dabcan inuu qoslo, hase ahaatee markuu inta u hogbaday afka kala qaaday ayay feerihii xanuuneen. intuu qosolkii isku celiyey ayuu isaga oo aan halkiisii ka soo dhaqaaqin wankii u tanaagooday kuna yidhi, wanow yaa kula joogay. kii oo baraadla ayaa markaa ugu jawaabay, cidna ilama joogin, haatanna ilama joogto. dhurwaagii oo jawaabta rumaysan la asii og inay run tahay ayaa isna wankii ugu jawaabay, waryaa wanow feerahaan qoon ku leeyahay ha iga qoslin. oo inta is-iloobay qosol ka wareegay. wuuse eedayoo wulaxii badnaa ayaa sambabadii qarxiyey. dhiig buu mantagay. wax yar kadibna jilbaha intuu u dhacay ayuu habsaday. kobtiisii isaga oo gorofsan, indhihiisuna ay shan yihiin, ayuu wankiina iska dhaqaaqay, isaga oo labac iyo leg iyo bariba tallaabada la qaadila. sheekadaasna waxaa ka hadhay hawraartii uu maantaa dhurwaagu yidhi ee ahayd, feerahaan qoon ku leeyahay ha iga qoslin, oo uu ku tiraabo qof loo sheegay arrin uu muddaba ku taamayey oo gadaalkii dhabowday, hase ahaatee farxad awgeed la rumaysan la. mar waa markaasoo waa 2dii jeer ee uu bahalku doqonoobay mid ahaan. jeerka kale ee la sheegay in dhurwaagu uu doqonoobayna wuxuu ahaa habeenkii uu inta waxbaba soo waayey uu isaga soo noqday halkii uu godka ku lahaa. isaga oo quus ku dhow, markaasna bohoshii iska hor yuurura, ayuu meel aan ka fogayn sharqan ka maqlay. inkastoo ay dunidu mugdi ahayd, haddana wax ka indha curdoone haddiiba meeshii ay shanqarta uga baxday ayuu indhaha iyo dhagahaba u wada jeediyey. wuu arkay. oo waa maxay? waa dameer keligeeda oo wax ku raran yihiin. oo maxaa ku raran? hilbo jaad walba leh, kuwo geel, kuwo lo-aad iyo kuwo ari intaba. markaas buu rumaysan kari waayey. qosol uu hayn la'yahay isaga oo isku celinaya ayuu si degan u daba tuuxeeyey. oo ma iyadaa kolnaba ka baxsan karaysa, maxaaba orodka ku wata? hilbihii buu kolba qaar eegaa, markaas buu kala qorsheeyaa. kuwo uu duqda u geyn doono, kuwo uu isagu cuni doono,
kuwa uu gabnaha siisan doono iyo dameerta qudheeda sida ay raxantiisu u wadaagi doonto. welise wuu rumaysan la'yahay waxaa hortiisa ka muuqdaa inay tahay dameer hidhba ku raran yihiinoo baylah ah. kolkaas buu qosol la dhacay oo boodbooday oo dhulka galgashay oo kacay oo fadhiistay oo inta gadi cad u seexday xidigaha la sheekaystay ayaankiisana uga warramay. hase ahaatee waxay noqotay farxad cimri gaaban. intii uu qosolka ku maqnaa ayaa waxaa isqabsaday cirkii iyo dhulkii. daruuro biyaysan baa isa soo doontay oo ay midabo mid ku biirtay. onkad iyo hillaacan kala joogsi lahayn ayaa afarta jaho isaga baaqay. waa karar dusha ah iyo daad mulcayeynaya oo haddiiba gal iyo goofba buuxiyey. isaga oo dhibicdana ka gabanaya ayuu labalaxaadsaday oo dameertii oo mar hore fogaatay tallaabo deg deg ah ku tiigsaday. waxbase ugama naasa caddaan. mar wuu ordaa, marna inta istaago ayuu sharqandhagaystaa, mar midig marna bidix, kolba dhinacba u cararaa iyada oo ay dhibicduna dhabanaaninayso. waxba wuu la'yahay. raq iyo ruux toona dameertii isma hayaan. roobkiina awal dhibic keliyuu ahaaye dabayl baa ku soo korodhay. kolkaas buu inta daalay welibana dardhaday. dabadeedna intuu geedo xir ah karartii kaga gabaday ayuu ku calaacalay mar kale hadduu codkii dameerta maqli lahaa in aanay qosol iyo cayaayir ku dhaafteene uu iyada iyo wixii saaraaba ku bintidi lahaa. sidaas ballaaranse uma odhanne wuxuu calaacalkiisii ku taariikheeyey oraah ay erayadeedu kooban yihiin oo ahayd allow yay mar u bururuf tiraahdaa. oo uu ula jeeday mar kale hadday dameertii ii sharqami lahayd sidii hore isuguma ladeen. waxay noqotay mahmaah ku soo dhacda qof walba oo wax uu aad u jeclaa uu ayaankiisa u soo dhoweeyey, dabadeedna goorteedii ku mintidi waayey, kol dambana ay u soo mari weyday. qofka ay sidaasi la soo gudboonata ayaa xusuusta sheekadan dhurwaaga iyo walaahdiisii ahayd allow yay mar u bururuf tiraahdaa. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e-da. waana qayb shanaad oo ka mid ah murtida iyo maahmaahaha ay soomaalidu dhurwaaga u saariso. dhegaystayaal, waxaa la yidhi dhurwaabaa goor fiid horaada wuxuu soo dul joogsaday qayro aad u dhaqan oo geel lo iyo ariba ay xero waliba u buuxdo. wuxuuse ka yaabay bulaanka reeraha ka baxaya iyo dhallinyarada faraha badan ee xoolaha ku dhex jirta. intii cabbaara ayuu wax ilbaad ka waayey. markaas ayuu istusay iyada oo arrini ay sidaa tahay haddii uu neef kala tago in markiiba laga ridan doono, cayrana dhabarka loo saari doono. isaga oo ay tala ku wansixsan tahay ayaa reerkii uu dul joogay waxaa u soo wareegtay haweenay baadidoona oo riyo maanta ka goosmay raadinaysa. haddiiba tii reerka lahayd ayaa u baytisay oo ku tidhi, sumadda aad sheegtay arigale ee xaynta ah goor aan fogayn waxaan ku soo maray balli hebel geedaha raydabta ah ee ku dhow. dhurwaagii oo labada dumara sheekadooda dhegta u dhigaayey ayaa isgundhiyeyoo ciddi isku jabiyey. farax buu ishayn waayey. markaas buu go'aan gaaray. reerkan uu raggu ka buuxo intii uu neef laga dhigto isku biimayn lahaa, maxaa u diidaya raydabta la sheegay isba wuu yaqaane xayntaas baylahda ah inuu u degdego oo haweenayda iska leh uu uga hormaro. waa waxba.
dhurwaagii orod buu istaabtay. Xagga iyo xagga isaga oo aan eegayn ayuu halkii ay dumarku isu tilmaamayeen durbadiiba isa sii taagay. Geedihii reydabta ahaa ayuu midba mar hoos joogsadaa. Afarta garjaho ayuu kolba mid jeedaaliyaa. Markay waxba u muuqan waayaanna dhulka ayuu isbilqaa. Dhagaha ayuu raaricinayaa bal inuu riyihii la sheegayay cidooda maqlo. Kolkii dambe ayuu ka shakiyey geedihii ay haweenaydii kale u sheegtay inay kuwan yihiin iyo in kale. Markaas buu daymo horle ugu noqday. Agagaarkooda ayuu eegay, mase xabagtii ka daadatay waxaan ahayni uma ogog lahaa, kamana agdhowa. ugu dambaystii markay u caddaatay hilib iyo isagu inay caawa isa seegeen ayuu dhab u calaacalay. kol isagii baa ishaaraamay, kolna geedihii reydabta ahaa buu haaraamay, kol saddexaadna haweenaydii xaynta ku baytisay ayuu haaraamay. Markaas buu yidhi, yaabaye amankaagayoo ashqaraaraye, ma anaan roorayn, mase reydabtaan reydabtii ahayn, mase rimagu ka soo dhacdii baan run sheegayn. Dabadeedna waxay noqotay hawraar uu ku maahmaaho qof dan uu lahaa aad ugu daalay, hase ahaatee ay waxba uga hirgeli waayeen. Inkastoo waruu islahaa waa biyo kama dhibcaan uu markiisii hore isku halleeyey kuna howlgalay. sidaynu ognahay ragga Soomaalidu haweenkooda way xifaaleeyaan. Haweenkii qudhooduna shib ma aha oo dhaliilaha ay ragga u hayaani ma tira yara. Taas si aad u ogaatana waxaa kugu filan inaad dib ugu noqoto heesaha godadlaha iyo qorqodaha ku saabsan ee ay haweenku isu jiibin jireen waayadii hore ee iyaga oo laba kaloodinaya ay qoysaskooda badarka u tumi jireen. waxyaalaha haddaba ay raggu dumarka ku xifaalayaan waxaa ka mid ah inaanay ka samri karin wax ay waa hore bixiyeen ama laga qaatay ama iyaga oo aan raalli ka ahayn si uun gacantooda uga baxay kuna dhaafay. guyaal badaniba ha ka soo wareegeene waxay rag badani qabaan mar walba waxyaabaha sidaa u dhaca gucashadoodu inaysan dumarka ka dhammaan. sida la sheego goor kasta way xusuusan yihiin, dadka kalena way xusuusiyaan. raggii hore ee Soomaaliyeedna waxay odhan jireen inanta la soo aroosaa haddii ay reerka dhari la soo gasho waa laga jabiyaa, maxaa yeelay ilaa maalinta ay habrowdo oo ay ayeeyo noqoto dharigayga ayuunbay haynaysaa. fikraddaas iyada ah in raggu qabaa la yaab ma laha, waxaase la yaab leh dhurwaaguna inuu qabo, sida sheekadan soo socotaa ay ina barayso. waxaa la yidhi dhurwaabaa goor habeena wuxuu u soo hilba doontay duddo rooman doogle intay degtay ku baraadhay. habeenkaasna inta xoolihii maashay soo xeraysatayoo iska sheekaysanaysa. xeryaha xooluhu ku jiraan tii uu u dhici lahaa intii aanu go'aansan ayaa dhurwaagii wuxuu dhegta u dhigay haweenay tu kale u sheekaynaysa oo ka calaacalaysa laba gu' ka hor ida uu isaga qudhiisu ka laayey. markaas buu isaga tegayoo qoys kale oo ishiduddada ah u cibil galay. sheekadii dadka ayuu dhegaystay, mase waa haweenay kale oo iyaduna habaar ku daldaraysa dhurwaa beri ka candhagooyey sac madi ah oo ay jeclayd. taasina waxay ahayd dhacdo 4 gu' ka hor ku sinnayd. dhurwaaga ay habaaraysaana waa isla isaga. afar qoys oo kale ayuu midba mar isdul taagay. ku walbana wuxuu ugu tegey dumar isu tanaagoonaya oo neefaf uu waa hore ka cunay dartood hiif iyo habaarba u dhaandhaaminaya. markaas buu goostay ilaah baa wax siiyee diihaalba ha qabee duddadan iyo dumaradeeda gocashada badan inuu isaga tago, wuuna ka dhabeeyey. ha yeeshee markii uu goobtaa ka jeceeranayay ayuu naftiisa waxa uu ku quusiyey hawraar uu habeenkaa reebay, waayadii dambana mahmaah laga dhigtay. wuxuu yidhi xoolo dumar haddii aan xoolaha ka aqaan ma cuneen. taasoo ay ragga Soomaalidu haweenkooda ku xifaaleeyaan amaba ay xusuustaan mar walba oo lexajeclada xaawalayda ay sheekadu joogto.